dowladda Ingiriiska ayaa mamnuucaysa qaadka iyadoo qaadatay go'aan lid ku ah taladii ay u soo jeediyeen guddiga kala talinta arrimaha daroogada ee marka la soo gaabay loo yaqaan ACMD. bishii Janaayo ayaa golaha tala bixinta arrimaha daroogooyinka waxay sheegeen in qaadku si sharci uga jira wadanka Britain iyagoo ku doodaya inaan lahaynin wax cadeyna oo muujinaya inuu dhibaato caafimaad leeyahay. hase yeeshee xogayaha arrimaha gudaha ee wadanka Britain Theresa May ayaa go'aan ku gaartay in qaadka la mamnuuco iyadoo leh halista qaadka ayaa la dheersaday. qaadka waxaa loola dhaqmi doonaa ayay tiri heerka labaad ama C inuu kaga jiro daroogooyinka sida ketamine iyo anabolic steroid. mar hore ayaa dalalka Yurub lagaga xayiray qaadka oo laga mamnuucay sidoo kalena Mareykanka iyo Canada. go'aanka dalka Britain ayaa waxa uu salka ku hayay arrimaha ammaanka iyo tixgelinta caalamka kadib markii dalka Britain loo adeegsaday jid la mariyo qaadka u kala socda dalalka Yurub. kuwa walaalaya qaadka ayaa waxay ka xumaadeen go'aanka dalka Britain ee joojinta qaadka iyadoo dowladda Britain diiday soo jeedintii guddiga tala bixinta. xafiiska Home Office ee wadanka Ingiriiska ayaa sheegay in xayiraadda qaadka ujeedada laga leeyahay ay tahay in la difaaco xubnaha bulshada Britain ee nugul. kooxaha Soomaaliyeed ee uga ololaya wadanka Britain joojinta qaadka ayaa waxay go'aankii hore ee guddiga ku tilmaameen mid qalad ah waxayna go'aankan mamnuucidda qaadka ee haatan dowladda Ingiriisku qaadanayso ee xogayaha arrimaha gudaha ee wadanku Theresa May ay soo sheegeen inay soo dhaweynayaan kuna tilmaameen go'aan sax ah oo dowladda Britain ay gaartay.